السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرين جنالك مركلة سود وواضح أدي هذا وما سنتين مانت وأحد وأنا شنت بيش السجالات سبتمبر سنة كلبا كون يشان يلا باتنك مقالكن وحن ربعنا ندي كل وداجو ورئيس أن لا يلنا يو عمر عبد جمال أو أهنين ودق دقاقة أرمها برشة الصومالي ده قبل كمين صوتا إسلام كان لا شقين يوليبا بوليسكا رمسي كاوني ayaa ciidamada ICE oo howlgalla ballaaran ilaa iyo markii Trump uu xilka la wareegay guud ahaan wadanka ka waday waxa ay bil ka hor ka qabteen Minneapolis oo ay xireen muddo bil ah oo xirnaana waxa la soo deeyay 30kii bishii hadda dhamaatay ee la soo dhaafay haddaba Umar Abdi Jamaal qadka ayuu hadda ku jiraa waxaan rabaa bal inaan wax ka weydiiyo xarigiisa sidii uu u dhacay soo deysmadiisii iyo arrimo fara badan oo la xiriira arintaasi soo dhawow waa kaaga mahadcelinaya wareysiga iyo inaad bulshada Soomaaliyeed oo su'aalo fara badan ka qabay xarigaada hadallo badan oo been abuurana isla dhaxmarayay bal inaad ka ku qanciso aad u sheegto sidii xarigaada uu u dhacay iyo waxyaabaha uu la xiriiro marka hore soo dhawow waa mahadsan tahay aada u mahadsan tahay wareysigan saad u sheegtay bishii la soo dhaafay subax ayaa Minneapolis downtownka gaarigayga anoo wata niman ii yimaadeen markay qabteenna waxay igu yiraahdeen waxaa aadaysaa Canada hadda ka hor ayaa arrinta hadda maahan sanadooyin ka hor ayaan isku dhacnay markaan isku dhacnayna then xaakimka ayaa wuxuu yiri ninkan lama dhoofin karo haddii aan la dhoofinayna waxa kaliya loo dhoofin karaa Canada waa gartay marka arrintaasi daba socdeen anigana lama murmin waxna buuqna ma dhiginin sidii baan isku raacnay nimankii saasi u dhacday waa gartay marka waxaa jiray case immigration oo sanadkii 2005 maxkamad ku taala Tennessee ay kugu xukuntay ICE-na ay sheegtay in 2011kii la yiri wadanka ha laga saaro Umar Abdi Jamaal marka arinta xarigaadu ma kiiskaas uu la xiriiray meesha arinta kiiskaas ayuu arintaas sidii rabeen uma dhicinin foomamkii aan waagaas buuxinay ayay waxay dhaheen hal su'aal ayaad qalad uga jawaabtay waa gartay marka su'aal qalad haddii aad uga jawaabtid dowladda foomkeedana waxay dhaheen waa fraud baad samaysay marka waa gartay way heleen dan markaasay isku dayeen inay haddana immigration judge hor keenaan immigration judge ayaa waxay rabeen ka waayeen oo ah in aniga aan la ii geyn karin meel aan Canada ahayn waa gartay dowladda abiil bay ka qaadatay abiilkiina ma ay helinin then halkaasi arrintu ku dhamaatay marka ma waxay rabeen in Soomaaliya lagu masaafuriyo halkii markii hore waxaan filayaa inaad wadanka Canada ka timid oo sharci ku leedahay oo Mareykanka sidaas ku timid marka ma waxay doonayeen in Soomaaliya lagu celiyo waa markii hore markii hore saasi ayaga ku doodayeen laakiin qaaligii markaas joogay ayaa arrintaas ka diiday oo amar uu soo saarayna yiri waxa kaliya la geyn karaa Canada waa gartay marka 29kii August adigoo gaarigaada wato markii ay ciidamadan ku istaajiyeen miyay ku sheegeen waxa ay yihiin dowladdan ka soconaa aysan nahay iyo waxyaabaha kugu haystaan miyay ku sheegeen mase isla markiiba gaariga ka soo deg waa ku xireynaa yiraahdo gaariga ka soo deg waa ku xireynaa waxa kaliya waxay ugu dhaheen Canada aadaysaa waxa wada hadal oo sheeka oo badan ma dhaxmarin waa gartay marka waad lagu waday xabsiga lagu geeyay sidoo ahaa xaaladda xabsiga kulay Albert Minnesota ku xirnayd sidoo ahaa xaaladiisa runtii ma xumin dad badan oo muslim ugu tagay Soomaali badan ugu tagay meesha jamaaca muslimiin ayaa waxa imaanba noo ahaa nin muslim oo ka yimid wadanka Azerbaijan oo ruushka ka mid ahaan jiray ayaaba imaanba noo ahaa meesha marka waxa runtii weyn ma arkino of course waa dareemaysaa qof xorriyadda laga qaaday oo meel lagu xiray laakiin ma xumin in general xaaladda ma xumin waa tahay hadda waxa lagu soo daayay ku dhawaad 6 maalmood ka hor soo deyntaada ma wax shuruudaha ku xirnayd maxayse tahay heshiiska qareenadaada iyo hadda ciidamada ICE ay gaareen ma laga yaabaa inay mar kale kugu soo laabtaan oo ay dib u xiraan
muxuu yahay marka shuruud miyaa ku xiran soo deyntaada sidee u dhacday arrintaasi waa wada hadal hadda socdo waaye waa gartay marka wada hadalka markuu bilowday ajaajku wuxuu yiri hala soo daaya ninkan wada hadalka waa inuu socdaa waa gartay marka ma wax shuruudaha ku xiran oo inaadna ka bixi karin gobolkoo kale amaba GPS lagugu xiray ma wax shuruudaha noocaas ah la socda soo deyntaada wada hadalku ka soo bixi doonaa wixii lagu gaaro waa gartay qaaligiina jaajkii federal jaajkiina arrinta wuu fiirinaya waa gartay adigu ilaa iyo muddo ayaad waddankan joogtay ku dhowaad waxaan filayaa 30 sano waxaa dadku ay aad kugu yaqaanaan in community activist aad tahay oo Soomaalida aad u caawin jirtay maxay tahay shaqadaadu ma urur ayaad leedahay Soomaalida caawiyo sidee Soomaalida u caawisaa wallahi aniga markaan halkan imid governorka state-kana u shaqaynayay dan wasaaradda beeraha ka shaqaynayay 9/11 markii ay dhacday ayaa Soomaalidii lagu soo yaacay markaas ayaan waxaan bilaabay inaan law school iyo lawyer la shaqeeyo dhibka ugu weyn oo aan la kulmayna waxaa ka mid ah ummadii aad caawinayso aad rabtid inaad caawintid ayaadba ka baxsanaynin waa gartay dadkiibaa jahwareer iyo buuq iyo isdabamariyeyn iyo hadal yani ayaaba aad waxba u qaban karinba marka in waxaasoo hadal lasoo dhex maraayo ummadii dhibaatada ugu weyn marka runtiina markii hore oo arrintan bilaabanaysay dowladda waxyaabahay tiri waxaa ka mid ah in ay dadka Soomaalida ay ka hesho in aniga Canada ka imid waa gartay mi fahmaysaa marka wax kale ma jiraan oo ah dhib kale ma jiro oo ah aan anaga ahayn Soomaalidu markii lagu xiray warar fara badan la isla dhaxmarayay oo la leeyahay ninkan markii horeba dawladda ayuu jaajuus u ahaa hadda operation Varitaskii kala codadkii food harvestingkii isaga ayaa gacan ka geystay walow adigu mar dambe aad ka hadasho arrintaas aad iska fogeysay marka maxaad uga jawaabaysaa eedayntaasi ah in dawladda aad si hoos ula shaqaynaysay adiga nafsadahantaadu markii dambena iyadii ay ku xiratay wallahi horta waxaa fiican in aqliga la isticmaalo qof haddii uu dawlad u shaqaynayo oo la dhaho hebel dawlad buu u shaqeeyaa markii ereygaas la dhaho qofkii ma u shaqayn karo dawladda maxaa yeelay haddii hadda adiga inaan information kaa keena aan rabo waa in adiga informationka aan kaa keenayo waa in anonymous ahaataa qof qarsoon waa inaadan iga shakinin marka hadda ina information kaa hela aan rabo ninka raadhankaaga oo ku dhinaca fadhiyo ood aaminsan tahay ayay dawladda taarget garaynaysaa may fahmaysaa si fiican marka horta sida Soomaalida saasay ahayd Soomaalida nimankii NSS ahaan jiray lama garan karin marka hal mar haddii qofka la dhaho dawladda u shaqeeyaa yani kaarkiisii waa gubtay waa gartay horta wax caqli galaya ma ahan oo caqliga insaanka ah oo caafimaadka qaba waxaa kuu soo haray muddadii halkan aan joogay Soomaalida way isdacweeyeen waxbay xadeen fraud baa lagu qabsaday waxaa lagu qabsaday argagixisaa lagu qabsaday maxkamadahana waa tegayni ayaga isku marqaati furayay marka qof hadda adiga dawladda u shaqayso aad war keento waa inaad testify garaysaa waa inaad warkii aad keentay aad marqaati furtaa si fiican marka weli qof maanta Soomaaliya oo dhihi kara Jamaal baa maxkamad ka testify garay ama Jamaal baa xiray ma jiro marka waa wax aniga aanan fahminin waa tahay waxaan filayaa arrintaas inay caddahay dadkuna ay ogaadeen waxaa jirta sidoo kale jimcihii shir jaraa'ida waxaa si wada jira u qabateen adiga iyo sheriffka Ramsey County maxay tahay shaqada aad u qabato ama si qaabka aad ula shaqayso sheriffka Ramsey County shaqada muhiimka ah horta aan u qabto waxa waaye waxaa jirta dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaali ah oo drugs galay daroogadii ay ku baaba'een
waxaa jira dhalinyaro aad u fara badan oo leeyar oo baabuurta jabsata dambiye gasha arrimahaas markii maare loo waayay ayaan Shariifka waxaan u bilaabay community engagement unit inaan kala shaqeeyo. waa karti isku xirka bulshada Soomaalida iyo Shariifka in aan waalidka aan u qabano shirar oo aan waalidka caruurtooda aan dhahno ka warqaba in aan caruurta isku dayno inaan ka soo saarno daraagiska isticmaalayaan in dhalinyarada oo baabuurta jabsanaysa oo dambiyar intay galaan hadhowti noloshooda saameyn weyn ku yeelanaya inaan ka hortagno aysan gelinin kuwii galana aan isku dayno in loo fududeeyo soo cashar ugu noqdo marka arrimaha noocaasa oo waxaas la xiriira ayaan kala shaqeeyaa. waa gartay marka hadda ku dhawaad muddo bilaha xirneyd hadda xorriyadaadii dib aad u heshay waxaad tiri qareenadaada iyo dowladda weli wada hadal u socdo oo la xiriira sidii arrintan loo soo gabagabeyn lahaa marka ma wax cabsiyo hadda aad ka qabtaa jirto in mar kale dib ay ku soo raadsadaan ciidamada ICE oo dib ay ku xiraan? horta wax cabsiya ma jiraan meeshan wax cabsiya oo taala ma jirto waxa meesha yaalo waxa way Canada aad ma fahmaysaa anigii hadda u jeedid oo la soo daayay waxay cadeen u tahay horta wax dambi oo lagu haysto oo leeyahay dambi buu galo hal xiro ma jiro. waa gartay dowladda meesha taal waxa way ninkan Canada ha aado anigana waxba kama qabay Canada la sheegayo. waa gartay imisa sana Mareykanka joogtay Cumar? Mareykanka hadda waxaan joogaa 20 sano ama ka badan 28 meelaasaan joogaa. waa gartay marka arrinta meesha taal waxa waaye sida loo buunbuuninayo ama sida wax looga dhigayo arrintu ma ahan marka dual citizenship aad tahay oo Canada iyo Mareykanka dhalashada waad ka haysataa meel arrintaas weeye waxa hadda meesha miiska saaran ayagana ay ku mudacayaan in maxay ahayd oo ay Soomaalida ka heleen informationkaas laakiin haba ka helaanba wax dhiba meesha ma jiraan ogtahay meesha meel walba horta adduunkan ilaah baa abuurtay ilaahna meel walba waa joogaa marka ummadii ayaa waxaa ku dhacay baqniin way baqayaan hooskooda ka didayaan waraha baqina war makhluuq uu ilaahay abuurtay ka baqinina war haddaad baqaysaan oo aad basartid inaad baqdid ilaah baa xaq ku leh inaad ka baqdid ilaahay ku abuurtay ka baqd bini aadana ka baqin dadkeena Soomaalida inta badan xuquuqdooda dhinaca sharciga ah ma yaqaanaan taasaa problemka keentay inta badan waxa inta u si dheer bas xuquuq aysan aqoonin ma ahan waxa inta asagoo qofkii xuquuqdii aqoonin ayaa waxa u si dheer qofkii inuu rabo inuu nolol samaysto inuu u si dhaqsaa ku taajiro inuu maxay ahayd wax isdaba mariyo marka waxyaabo listen anigu markaan Soomaalideena fiirin imagine dagaal sokeeye waxaan ku jirnay 30 sano hadii ka badnayn 30 sano ka hor 20 sano ka hor adiga 50 sano Soomaaliya generationkeena waxbarasho oo degan ma helinin mid diini ay mid cilmaani ama aan helinin xilli qoxood Soomaaliya sanadii ugu dambeysay dara dhacay education systemkii uu burburay xilli qoxoodtaas oo marka dad waxa yimid oo aan soo marin process oo academic mid cilmi diini ah iyo cilmi maadi labadaba aan soo marin isla markaasna hankii adduun ku jiro marka hankii adduun sa u maareysid waa inaad haysataa tool sax ah aad wixii ku maareyso toolkii haddaadan haysanin hadba dariba madaxa ku dhufanaysaa adigaa iscaynaya adigaa isdhibaateynaya adigaa bohol iska ridaya waana baqaysaa kana marka yani buuqaas oo aan ka wada simanahay ayaa marka waxaad aniga fiiridi aniga jamaal iska dhaafo waxa culumadii diinta loo haysay ayaa la eedeynaya oo la leeyahay jaajuus waaye oo gaal waxa ay aniga igu hayaan aad u jeedid waxa ka daran waxay ayaga isku hayaan waa tahay aad iyo aad u mahadsan tahay Cumar Cabdi Jamaal waa kaaga mahad celinaya wareysigan iyo in bulshada Soomaaliyeed aad u kala cadeyso sidii ay wax u dhaceen xarigaada arrintii la xiriirtay
aadaana kaaga mahad celinaya waraysiga adaa mudan